دولتي مسلمات وما حكى دنبي دولتي ميليتريجا كدبنا ما حكى دنبي قبائل كي إسليناي هاي اسكو حساب وما يقصنوا 9 سنة أو أيوب حيان مسلمات كوي 14 سنة أو شيوعية يهنتي وذاك علمي وكل سنة أو عن عقيدتنا وافق سنين صدن سنة أو كدن بيسي أو بربر يا بابا مركا و60 سنة وحنود بالدقنا مانتا 60 سنة يتيهون في الأرض لحدا سنة أو ورير سنين خطبة waxay ku saabsan laba arrimood oo isbuucan waad ogtihiin oo wuxuu ku astaysan yahay taariikhdan oo kale isbuuca xurriyadda Soomaalida ama ha ahaadeen Soomaalida jamhuuriyaddii labada gobol ahayd ama ha ahaadeen Djibouti labadii kale ayaga maalin astaysan ma ayna helin intii kalena way sii burbureenoo maanta meesha ay marayso waan ka warqabnaa waxaan soo qaadayna marka quraanka cajabsanidiisa mar walba oo la joogo arrin munaasab ku ah waxa markaas taagan ayaa laga dhixilaya khudbada hore waxay ku saabsaneen marka ummad gumaysi u haysan jiray oo gumaysigii ka xorowday oo markii ay xorowday meeshii ay xurriyadaasi macnaheeda intay fahmaan ay ka faa'iideysan lahaayeen meeshii maaleen ahayn inta u dhaqaaqeen wareer iyo ka bixi waayay nolol xumo taas markii la fiiriyo waxay u eg tahay xaaladdeena oo kale xurriyad inaan gaarnay oo gumaysi aan ka xorownay 60kii shaki kuma jiro laakiin si isbuuc horeba aan sheegnay maanta xageen joognaa maxaan se xurriyaddii kadib samaynay qolaya reer banu Israa'iil oo quraanka aad uga sheekeeyo waxa gumaysan jiray fircoon quraanka inooga sheekeeyay gumaysiga sida uu sameyn jirayna waxay ahayd wuxuu gowrici jiray wiil kasta oo u dhasha gabdhahana uu iska deyn jiray nabi muuse ilaahay soo saaray markaas fircoon intuu la hadlay wuxuu ku yiri waxaan kuugu imid an arsil macana bani israa'iila wala tu'adhibhum dadkan aad gumaysanaysa xaruurta ka laynaysa inta iska dayso xurriyad ha gaareen ani ugu wareejiyo iska dhaaf adi saraac baa dhex maray saaxir baa tahay intaad ka imaatay muddo dheer ka bacdi adiga oo hawshaasi ay socotay ilaahay reer banu israa'iil uu gargaarayo fircoon biyaha intii lagu dhaxriday ayuu wuu qarqoomay reer banu israa'iilkii fircoon laga halaagay maxaa la rabay marka inay ilaahay u mahadiyaan nabi muuse waxa lagu yiri reerkaagan reer banu israa'iil ah ilaahay uga mahadiyeen xusuusi maalmihii nicmada waa si hadaan isu xusuusinayna maalaha xurriyadda laakiin siday ahayd si aanan hadaan u qaadan waa mushkilo nabi muuse waxa lagu yiri an ikhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wadhakkirhum bi ayami illah yani qoomkaaga ka bixin mugdiga ay ku jiraan oo gumaysiga iyo dib u dhaca wadhakkirhum bi ayami illah maalmaha ilaahayna xusuusi maalmahan marka hadal is xusuusinayo oo leeyahay maalmihii xurriyadda Soomaaliyeed waxay soo hosgalaysaa wadhakkirhum bi ayami illah maalmaha ilaahay oo la is xusuusiyo quraanka ka sheekay marka waxa la yiri reer banu Israa'iil waxaad ku tiraahdaa waxaad xusuusataan nicmada ilaahay wa idna jaynaakum من آل فرعون وإذ محيط إذ ووقت مقت والزمن وحلي هذا إنك سو حليين وما استيسنا ما أنت مثلا لحلة باتن كجون لباتن يتضوضا جون أو جيبوتي لباتن مع كود جولاي أو ما أنت يعني ملوك أمة الصوماليات يحرية دي ومالمو والس حسوسنا يا وحالي حسست إن الجاب ما أنت إلهي وإذن كتبت بادي فرعون إذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب محو سمين جري يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم نعمة الله سبحانه وإذ فرقنا بكم البحر ما حصوصتان حلقي أن بدأ يدين دنبلني ومركم فرعون سوء ريني وأصحاب موسى إلى هايين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون الله وأنا لسوء قاري قال كلا إن معي ربي سيهدين إلهي بودينا الصين أيها عبصننا ونبي موسى وشعر waxaa ku dhufatay badda oo ku dhuftay fanfalaqa fakana kullu firqin kadawd alazim oo fircoon badda intuu soo galay asay ciidankiisii la isku furay biyi oo uu ku fatahmay oo biyi ay qaadeen wa id farqna bikum albahra fa anjaynaakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun idinku u jeedin halka la marsi
nabi muuse waxa loo ballan qaaday kitaabka tawrada in la soo siin doono waa la soo siiyey waa nicmo hadda inaga Soomaali hadaan nahay Talyaaniga oo koonfurtan gumaysan jiray wixii dhibaato uu ka geystay gaar ahaan gobolkan Shabeellada Hoose waa tii khudbadan aan ku soo qaadanayna waxa la yaqaan reer Shabeellada Hoose ay yaqaanaan kaliya la yiraahdo kaliya asal Soomaa muxuu ku baxay asaylahaasi Talyaanigu baa dadka sida hadda caratuurka markuu biga soo fato intii carrada jawaano looga buuxiyo biyaha lagu celiyo kale ayaa lagu celin jiray dadka isticmaalku soo dadka yeeli jiray kuraas amala dadka loogu fariisan jiray kursi shir hadii la galay koox baa Allah marka forso markaas siyaarka lagu korcabaya 3 saacadood 4 saacadood shirka intuu socdo marka dhibaatada yasumuunakum su'al cadaab dibkii umadan loo soo geystay awowiyada iyo taariikhdii laga qoray akhriya dadkii noocaas ahaa wax la dagaalamo wax la wado Soomaali markay man nala joogaysan ayay noo fikiraan waxay dhaheen waa idin ka tagnay xurriyad baan idin siinay waa kaas xurriyadna ma ayna siinin inayna siin waxa u daliil ah ayagii la baxay maahine qawaaniintoodii la dabaqaayay waxa uu lagu fariisay kuwa Soomaali ah waxa la ka sii wada oo marka hadii fikirkiisa meesha uu yaalo ani maxaan ka xoroobay xornimadii la qaatay ee la gaaray waa kaas bas hadda waxa inooga sar xurriyadii dadkeena iska jidbaysan bas meel la joogo iyo wax la haysto iyo waaqic sidoo yahay iyo ummadda say u baabaasan tahay ma bal xusuustab halkan baa waxa inta fanaaniin la soo safay waxa leeyahay hayo ku cilciliya goormaan liibaanay kowdii juu may ku hayaan war adeer goormaan lulanay 6 saac war waxa ma inaan lulanin aana way naga daateene hadday u baahan tahay marka inaan lulano maxaa yeelay markaan xorownay baarlamaankii ugu horeeyay shariicada islaamka ha la isku dabaqo markii la yiri way ku qosleen waxay dhaheen nin waalna tahay naga tag hadii aan shariica isku dabaqno mushaarka yaana siinay baarlamaanka hadaan nahay iyo ciidanka iyo mushaarka yaana siinay dawladihii reer galbeedka ee na caawinay ee na kaalmeynay maxay noo kaalmeynayaan ma ilaahay dartiiba fi sabiilillah miya si aan u tukano ma si aan u tukano ma ah waa si aynan weligeena xor u noqonino la inoo gadaal inooga haayo waan tii mithaalki carabiga u dhahay man la yamliku quutahu la yamliku qararahu qofkii asaga raashinkiisa aan haysanin go'aankiisa asaga male go'aanka waxa iska leh qofka raashinka siinay marag waxay noo siinayaan raashinka wax kale ma ah inma nud'imukum liwajhi Allah la nuriidu minkum jazaa'an wala shukuran ma ah inma nud'imukum inaad saan ahaataan waa hormar aydan gaarin aydan heshiinin horay aydan u soconin waligiin ba saan ahaada markaas xaga u bod 6dan soo kama soo wareegin 6dan kaasna waxa la dhigi karaa si reebanu sadaan akhrinay nabi Muuse soo dadkii xurriyada uu gaarsiiyay reebanu Israa'iil soo lama